xanaankii doorasho iyo geedigii dheeraa ee loo galay in la helo hogaamiye karti leh. Shacabku fartooda waxay ku soo saareen Muuse Xuseen Cabdi Muuse Biixi. Maalinkii shalay ayay kumishika doorashooyinku ku dhawaaqeen in Muuse uu yahay madaxweynaha Somaliland 2017-2022. Shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa taageero u muujiyay madaxweyne Muuse, waxayna sheegeen inay ka filanayaan waxqabad muuqda iyo waliba dhamaystirka qabyadii Axmed Siilaanya uu ka tagay. Waxayna ku celceliyeen in madaxweynuhu ogaado gobolka maadaama uu yahay gobol ka go'an gobolada kale. Xukuumadihii kala duwanaa ee Somaliland Soomar ayaa iyagu ku kala duwanaa qaab maamulka gobolka Sool, haba ugu darnaatay xukuumadii u dambeysay ee uu garwadeenka ka ahaa madaxweynaha la sii galbiyay Axmed Maxamed Maxmuud Siilaanyo. waxaanu markaa hore leenahay madaxweynaha cusub hambalyo baanu leenahay hambalyo. waxaanu leenahay dadka iyo dalka iyo diinta inuu noqdo intaba mid wax u qabta. waayo dadka codkooda markay ku ridayeen waxay lahaayeen haddaadna daba martayso wacdan la ku qabay midka ha iska ilaaliyo ee intaas lagu soo koobaya madaxweynaha. waan taageersanahay waana soo dhaweeyna kollay saddex musharaxiin ma ku guulaysan la ma garatay marka waan soo dhaweeyna yacnaha doorashada dhacday si xaqii marka hore doorashada dhacday waayo doorasho la mid ah ma arag in badan baan doorashooyinka ka soo shaqeeyay anigu marka waxaa jirtay warqad dheeraad lagu bedeli karaa halka la leeyahay dad waa lagu shubtay lagu bedeli karaa waxaa la leeyahay dad dhintay codeeyo xawaaluna ma codeeyay ma filaya marka waxaalahaas duqeeyay lama geyn marka anigu waxaan taageersanahay oo soo dhaweynayaa yacnaha doorashada dhacday iyo guusha uu gaaray Muuse Biixi waa soo dhaweynaysa. waxaan doonayaa inaan halka ka muujiyo taageeradeeda aanu hayo xisbiga kulmiye oo ilaa maanta ilaa maalin aan la sheegi karin aanu ahaa taageere aad iyo aad u weyn. waxaan soo dhaweynayaa horta madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. ma waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto qaasiyatan kuwa Somaliland. waxaan aad ugu hambalyeeyaa Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland annagoo ku soo saaray cod iyo far iyo taageero buuxda haddana waa la garab taagannahay isagana xisbiga kulmiye oo aad la soo halganay waxaan ku codsananaa in waxyaalihii faraha badnaa ee laga soo hadlay ee laga soo shaqeeyay saxiyada lahaa oo gobolada bariga ay tabayeen inuu dhamaystiro. waxaan taageeraynaa madaxweynaha MBC Muuse Biixi Cabdi waan soo dhaweynaa madaxweyne dalka iyo dadka waa adigu ku baahan waan kula shaqeyn dawnahay dadka reer Laascaanood waxaan leenahay in xuduudaha la soo xiro yoocadana nagu yeegana markii lagu doortay xal yoocadana nagu yeegay madaxweyne waxaan jecelahay inaan kula shaqeyno habeenii maalin waan kula shaqeynayno horena kula shaqeynayno. runtii waxaan bogaadin iyo hambalyo u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku guuleystay madaxtinimada dalka 5 sano soo socota. ilaahay waxaan u rajaynayaa in xilkiisa la garab galo si hufan cadaalad iyo sinaan ugu maamulo. dhammaan bulshooyinka reer Somaliland waxaan ugu baaqayaa in madaxweynaha xilka la fududeeyo oo la shaqeeyo. marka waxaan u mahadcelinayaa labada TV daawadayaashooda iyo dhageystayaashoodaba RTN iyo Kalsan. marka labaad aragtideyda waxaan ka hadlayaa magacaabista Muuse Biixi. Muuse Biixi kama duwanaan doono siyaasiyiintii hore waddankan xukumi jiray. dad badan baa waxay aaminsan yihiin Muuse Laascaanood lagama dooran oo Muuse waa madaxweyne Somaliland loo doortay. kuwa Laascaanood joogay aan dooran iyo kuwa doortayba dhammaantood madaxweyne waxaan si halkan hambalyo uga dirayaa halkan madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi anoo ka mid ah taageerayaashiisa xisbiga kulmiye kuna hadlaya dhammaan afka dhalinyarada gobolada bari. waxaan doonayaa inaan madaxweynaha yaro dardaaran halkan uga jeediyo. madaxweynaha waxaan leeyahay Somaliland hore ama ka horeysay khaasatan gobolada bari ma aha mid looga bartay yacnigii horumar iyo rayn waxaan ka dardaarmayaa inuu qaado talaabooyinkii hore oo kuwii hore uu qaado kuwa ka duwan kuwii hore. Xamse Raadeeye, RTN TV, Laascaanood.